iyadoo dhawaan magaalada Berbera iyo deegaanada xeebaha ee gobolka Saaxil ay ka daayeen roobab daadad iyo dabaylo wata isla markaana wali uu socdo gurmadka samata bixinta dadka ay saameynta ku yeesheen ayaa waxa saaka deeq raashin loo qaybiyay 750 qoys oo kamid ah dadka danyarta ee ku nool guud ahaan xaafadaha magaalada Berbera waxaana deeqdaasi ku deeqday hay'adda WFP waxaana mas'uuliyiinta qaybinta dusha saartay dawladda hoose Berbera goobaha loo asteeyay qaybinta raashinkani ay si habsami uga socdeen qaybintaasi ayaa waxa aanu kula kulanay mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Berbera oo ku hawlana gudashada waajibaadka ka saaran inay dadku si degan u qaataan caawimadan waxaana mas'uuliyiinta aanu halkaasi kula kulanay kamid ahaa xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo agaasima waaxidka arrimaha bulshada dawladda hoose Xasan Cabdi Cali waxayna faahfaahin ka bixiyeen deeqdan caawimada sidoo kale waxay si gaar ah ugu mahadnaqeen maamulka gobolka Saaxil ciidamada booliska iyo waliba gudiyada xaafadaha oo gacan ka siiyay qaybinta deeqda bismillaahir rahmaanir rahiim runtii farxad bay noo tahay maanta inaanu halkan joogno oo aan la shaqeyno WFP oo raashin halkan ku qaybinaysa maanta waxaanu qaybinay 750 qoys ayaanu raashin u qaybinay raashinka waxa bixisay hay'adda WFP waxa qaybisay oo la qaybisay hay'adda Gaafo oo runtii aad ugu amaanan waxa kaloo aad u amaanan gudiyada xaafadaha oo si aan caadi ahayn runtii loo shaqeeyay waxa kaloo maamulnaa gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo ciidanka booliska oo runtii shaqo farabadan oo xoog leh nala qabtay waxa mahad ilaahay mahad ugu weyn waxaan u qaybinay shantii xaafadoodba raashin waan u qaybinay raashin loogu talagalay waan ugu qaybinay dadkii loo baahnaa in lala kulmana waan siinay raashinka waxa kaloo farxad noo ah si aan dhibaato lahayn oo dhameystiran oo maartay aanay hay'adihii diin ay u dhamaatay iyadoo ramadaana ilaa 9 ilaa dhamaad raashin ku dhowahay aad iyo aad bay farxad ugu tahay runtii alxamdulillah rabbil caalamiin cid kastoo ka qayb qaadatay waan u mahadnaqaynaa cid kastoo gobolkan ama degmadan caawimo siisa ama keenta waqtigan adagna waxa weeyaan waan soo dhaweynaynaa aad aad u mahadsantiin maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa dad masaakiin ayaan ugu qaybinaynaa raashin ay noogu deeqday hay'adda WFP oo ay qaybinayaan isla markaana ay distribution ka qaateen hay'adda Gaafo ee localka waxaan guud ahaan u qaybinaynaa maanta 750 qoys ayaanu maanta u qaybinaynaa raashin ku filan raashinkaasi waa raashin isugu jira garow waa raashin ay saliid ka mid tahay waxa ku jira misirkii waxa ku jira boorashkii way raashin ku filan dadka masaakiinta ah muddada aan ugu talagalnay ilaa 40 cisho ku filan qoyskiiba waynu ognahay waxa ka dhacay magaalada ayaamihii aynu soo dhaafnay waxa ka dhacay roobabkii ka daay duufaan bay lahaayeen dad fara badan ayaa guryahoodii ka barakiciyeen oo biyihii galeen dadkii masaakiinta ahaa ayaanu soo xulnay waa dadkii ugu jilicsanaa ee ugu hooseeyay dadka loogu talagalay maanta inay qaataan 750 ka qoys oo laga qaybinayo 4 xaafadood magaalada xaafadan aynu joogno oo wada jira santarkii barwaaqo uu ka socdaa daaroole uu ka socdaa sidoo kale xaafadda Burcasheekh oo isugu jirta xaafadda Fiinland iyo magaalada Cadbay la socdaana uu ka socdaa dhammaan si fiican oo guul ah ayuu noogu soo dhamaaday qaybintaasi waad aragtaan hadda ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican uu noogu dhameeyay waxa kale oo mahadnaqaynaa ciidamada booliska oo runtii ammaanka qayb weyn ka qaatay si fiican noola qaybiyay waxa kale oo mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo isaguna xil weyn iska saaray raashinkaana soo gaadhay inuu gaadho qof kasta oo miskiin oo loogu talagalay maamulka dawladda hoose isaguna waxa uu qaatay arrintii ugu cuslayd ee qaybinta ahayd isagoo kaashanaya xaafadaha ama gudiyada xaafadaha oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno si fiican ayay noogu soo dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin waxyaalihii kale ee noo yimaada ee caawimooyina meel kasta naga soo gaadhaanba diyaar waxaan u nahay maamulka heer degmaha hadii aanu nahay maamulka dawladda hoose diyaar waxaan u nahay inaanu dadkii masaakiinta ahaa ee loogu talagalay ee ugu jilicsanaa inaanu gaarsiino waa bil Ramadaan oo khayr leh ummadda islaamka cid kasta oo la soo baxaysa sadaqad waxaan ugu baaqaynaa dadka masaakiinta ee walaalahooda ina wixii ay soo tari karayaan soo taraan xubno kamid ah dadka ka faa'iideystay caawimadani ayaa si weyn u boogaadiyay dawladda hoose qaabka xeelad iyo xilkasnimada leh ay deeqdani u soo gaarsiiyeen
mahadnaqaynaa hay'adaha kuwa kalena waanu ka sugaynaa. bismillah allahu akbar aniga magacaygu yahay Sahra Cawad Shire waxaan salaamayaa marka ugu horeysa horta ilaah baa mahad iska leh marka xigta waxaan salaamayaa dawladda nimanka soo abaabulayna siiyay waxoogaa yar raashinka ee dawladda hoose ayaa ilaahay iyaga ma mahadinayna mahad ilaahay saasaan ilaahay mahadinayna xoogaaga inoo keenana wayna soo gaadhay mahadana ilaahay baa iska leh waana qaadanay Masdax Salabaan Sidde telefishinka Ariel Berbera.